markaa istiraahdo nolosha way kuu dhammaatay, noloshaad ka dhacday, qofku ugu faraxsan ma laha, waxaasaa samaysay, qofku ogolaanaya ma laha, maxaa samaysaa? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. seetiin saxibadey ma ii fiican tihiin? maanta waxaa idin wadaagayaa nolosha markii ay kaa dhammaato oo wax aa qabata aa weysid oo meel kasta albaab kasta kaa soo xirmo meeshaa ku faka lahayd. waxaa idin wadaagayaa aniga waxa ii toosay oo markii hore noloshayda aan isgelin jiray cariirigaasna aan ugu baxay. 2 sano soo dhaafay wax weyn aa ugu dhacay, noloshayda iska bedelay. waxaas iska bedelane aniga faa'iido ay ugu jirtay. marka hore waan naxay, markaan naxay waxaan dhahay programkaanito oo noloshayda kusoo zaa'iday waa igu culus tahay. laakiin markaan waqti siiyey oo time aan qaatay waxaan ogaaday nolosha cusub hadda aan galay inay ii tahay mid aniga ii qiimo badan oo maxaa la dhahaa oo heer fiican aan isii gaarsiinayso. waxaan sameeyey 2 sano soo dhaafay ilaahay inaan u dhawaado, waqti ii qaas ah inaan subsado, tusbiix ani ii qaas ah inaan samaysto. dadka ayagoo ogeen inaan meel gooni galo oo rabbi subxaana wa tacaala aan u ooyo, aan baryo, si sir aan ku baryo, ilaahayna aan ka baryo culayska ii koray inuu rabbi subxaana wa tacaala iga dejiyo. marka waa iska wada sheekada way socotay. idinkaa markaati ka 2 sano la soo dhaafay wadankan hadda aan deganahay horta aad u qabow yahay. wadanka qabowna wuxuu ku xun yahay dadka ibni aadanka. markaa sii weynaatid, markaa yar tahay xooggaagaa iskaga celinaysaa, laakiin markaa sii weynaatid waxaa u baahan tahay wadan kulul ina aadid aa u baxdid sanadkii mar xataa allah ka dhigeen. marka dhiba igu ahayd inaa aniga wadankan ka tago oo aan holiday aado ama meel wadan kulul ina aado. idinkaa waxaa markaati ka tihiin sanadkii hore iyo sanadkanba sanad kastaba inaan 2 jeer aan holiday aadayo. mar waxtaa way jirtaa aan 3 jeer aaday holiday, laakiin tan 2 jeer aan igaga soo qaadaya. sanadkooda markaati waxaa ka tihiin inaa maxaa la dhahaa oo aan aaday Soomaaliya, Muqdisho. waan iga soo duubay anoo marka joogo, xataa video waan soo duubay oo ku jira YouTube ka soo fiiriya. Soomaaliya aan aaday oo sida ogtihiin tikitka taa oo aad qaali u yahay. Dubayna waa aaday maalin kale, mar kale maya dambiyaan gelin. Tunisia aan aaday. Soomaaliya 3 wiigaan ku maqnaa, Tunisiana 4 maalmood aan ku maqnaa. 2 jeer aan saas ku kala baxay. sanadkaana waxaa markaati ka tihiin 2 jeer inaan baxay. videoga ku jira soo fiirsada please. marna Kenyaan aaday oo 2 isbuuc aan kusoo maqnaa. haddeertaana Tunisia ka imaaday, video niga soo duubay oo 4 maalmood kusoo maqnaa. rabbi subxaana wa tacaala amarkiisa ku dhacday wadan kulul inaan aado caafimaadkayga si oo kor igu kaco. marka saaxiibayaalow see ku hela waatan markii aan 2 sano ka horne waa kasii maxaa la dhahaa markaasaan kasii dhaqaale fiicnaa. hadda dhaqaaleyga asoo oo dib isku dhigay way ii barakowday nolosha. waxay igu barakowday nolosha waxaa waaye alla subxaana wa tacaala aan si sir u tuugay, alla subxaana wa tacaala aan si qarsooni u baryay, alla subxaana wa tacaala aan isku xiray, jecelkiisana waa raadsaday 100% qalbiga ilaahay inuu igaga buuxiyo. marka aan maxaa la dhahaa aan saas aan noloshayda aan u bedelay oo dhinaca alla subxaana wa tacaala aan noloshayda aan ka raadsaday inaan raaxo ka helo. dadku waxay ku dhahayaan maxaa jeceshahay? marka su-aashaas lagu weydiiyo waxaa kuu soo baxayo raashinkaa jeceshahay, dharkaa rabtid inaa xirato, halaha oo lacag aa rabtid inaa jeebkaada kusoo gasho, waxaasaa kuu soo dhacaya soo maahan. amba guur fiican inaa hesho, waxbaa kuu soo dhacaya adiga oo gaaban. marka naftaada maxay jeceshahay marka lagu dhaho adiga dhan maba ku jirtid. marka meeshaas waxaa igaga soo baxay in ayba tahayba furaha dhan oo lagu furaayo nafta raaxadeeda lagu furaayo inay tahay alla subxaana wa tacaala inaa u dhawaato si oo adina programkaaga dhan oo kugu fududeeyo. marka aniga markii xataa wax yar xataa raashin anoo karinayo igubto, gacanta igubto, biyo ku shub, daawo mari, inta ka bax, boodbood waa iswaali jire. hadda haddee gacanta iga gubataa sheegaysaaye wax ugu xanuunka badan adduunka hadduu igu dhaco intaanan meel fiirinin, daawo aan raadinin, waxba aan samaynin. kelmadaas waa maqli jiray, laakiin nolosheeda maalinku waxyaalo badanaa maalin kasta jirto oo noloshaada aa maqlaysid oo laakiin noloshaada aa ku dabaqaynin. ma ku dabaqi jirin. dadku waxay dhahaan intaana daawada aad raadsanin horta ilaahay isku xir, maxaa la dhahaa alla bari,
maxaa la dhahaa faatixada iskaga akhri, qur-aan iskaga akhri, qulwala iskaga akhri, wax lee samee. marka hadda aniga fiiri guriga markaa wax suubinaya ibni aadanaa tahay maalin kasta markaa wax qabanaysid waxbaa ku gaaro, jug yaraa ku gaarto, foornadaa gacanta kaa gubayso, mindiya farta geeskeeda kaa dilaacinayso, xanuun badan dhiig badan kaa soo da-aayo. intaanan meel u cararin allah u cararaa subxaana wa tacaala. jawaabaan helaa straight. gacantii ay balbalayso saliid iga gaartay haddii aan maxaa la dhahaa ilaah i caafi ilaah i shaafi aan dhaho sala allahu calaa sayidina maxamed wacala asxaabihi ajmaciin aan dhaho, isla marka waa iga istaagaysaa. xanuunkii wuu qafiifsamaa, xanuunka wuu jiraa, laakiin tii aan la boodboodayo meesha ma taalo. xanuun yar oo qafiif ah oo aan kadib aan wax saari karo, daawadii iyo wax aan saari karo ay isoo baxay. kadib aan waxaan ku sameynaa wixii aan ku sameyn lahaa, ama biyo iskaga shubaya ama daawo iska saaraa. furaha sirta dhan raaxada qalbiga lagu sheegayo maaha kareemaa marsato, ma ahan waxaa ka daba cararto. aniga nolosheyga 99% waxaa ku masquulin jiray wax faa'iidadeeda aniga aan waxba ka helinin. dadka inaa aan masaacado u fidiyo, gurigeyga inaan masaacado u fidiyo waxaas dhan waa fiicantaa, ajraa laga helaa. laakiin number 1 waxaa u qaba lahaa qofkan waa number 1 soo maahan, waxaa u qaba lahaa dib aan u dhigi jiray. hadhowtiyaa dukanay salaada casirka iyo duhurka oo isku dhawaadeen, hadhowtiyaa tusbiixsane maba ay soo socota, hadhowtiyaa maxaa la dhahaa waxaa sameynaysaa ilaahay weydiisanaysaa waxaa rabtid, meeshayba ka baxee. waalidkii cabuda markaa seexanaya ilaahay u baryaaya, meeshayba ka baxee. marka self care lagu sheegaya sanadka maanta oo qof kastaba oo self care meesha kula soo taagan yahay, qof kasta wuxuu raadinayaa hal shay bis. halkaas shayna maxaa mataqaanaa? qalbigaaga gudahaaga adoo raaxa ka dareemtid. raaxada qalbiga ugu weyn ana marka aan dareemo waxaa waaye culayska i haysta dhanna oo ilaahay iga qafiifiyey, lacagta igu yartahay ilaahay inuu ii badiyey, reerka inuu ilaahay maxaa la dhahaa ii qaboojiyey, ilmaha inuu garabkayga ila galay, odaga ilaahay inuu garabkayga ila galay, nafteyda aan xukumeeyey 2 sano 3 sano ugu dambeysa waa. taasna waxay ku imaatay maaha aniga waxaan samayn kari ma aha, ilaahay baa i jeclaaday, wuxuu ila jeclaaday in aan asiga baryo, in aan luuq galo oo ilaahay tuugo, taasoo ugu fududay. marka adduunka culayskiisa waa badan yahay, aakhirna waxaan rabnaa inaan meesha ugu sarreyso oo rabbi subxaana wa tacaala na geersiiyo. marka sirtaan iga qaada maanta oo ah noloshaada suubso rukun wax ku ah adiga oo ku qaas ah ilaahow 3 qulwal allah ka dhiga maalintii, rabbi subxaana wa tacaala si ugu dhawaatid oo qalbigaagana uu yahay inaad rabbi subxaana wa tacaala u dhawaatid. ilaahayo tasbiixda saliga nabi allah ka dhigo, استغفرullah allah ka dhigo, wixii kuu fudud afkaaga ah, laakiin suubso rukun kuu qaas ah, suubso rukumo waxaaga ku sii socod. saaxiibayaalow aniga heeraan ku gaaray, idinkana waxaan rajeynaa inaa heer ku gaartiin. marka saaxiibayaal aan isku soo duceyno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.